kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa warbixin dhifa oo tilmaamaysa Soomaaliya oo 2 sannadood ka hormartay nolosha guud ahaan qaaradda Afrika kuna biirtay nolosha Ruushia oo ay kaalin la gashay iyo wadamo horumaray heerka ay ka gaadhay horumarinta dhalinyarada dhinaca ammaanka iyo sidoo kale ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada. warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaadaysa iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay horumarinta dhalinyarada ee dunida ayaa shaaca ka qaaday guud ahaan dunida heerka dhalinyarada noloshooda. warbixintani oo Qaramada Midoobay ay ku fiiriso heerka isbedelada nolosha ee dal kasta oo dunida ah, Soomaaliya ayaa ka booday liiska guud ahaan qaaradda Afrika waxayna gashay liiska ay ku jiraan wadamo ay ka mid yihiin Ruushia, horumarinta dhalinyarada iyo sidoo kale ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada iyo dhibcaha isbedelay hal sano gudahood. Kenya ayaa gashay kaalinta 139 ee 2020 horumarinta dhalinyarada dunida iyada oo lagu cabirayo xaaladda dhalinyarada oo ku nool 181 dal oo adduunka ah. marka loo eego qiimeynta 3 sannadood ee la soo dhaafay, xogayaha barwaaqa sooranka horumarinta dhalinyarada 156 dal ayaa la diiwaan galiyay dhibco yar oo horumar ah. qiimeyntani ayaa imanaysa iyadoo dunidu maanta ay u dabaaldegaysay maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada 2021 oo ku dhigiisu yahay bedelidda nidaamka qorshaha hal abuurka dhalinyarada ee caafimaadka dunida. marka loo eego warbixintani waxay taxaysaa guud ahaan horumarada ugu badan wadamada gaadhay dhalinyarada iyo kuwa galay kaalmaha ugu hooseeya. Singapore ayaa markii ugu horeysay gashay kaalinta koobaad, waxaana ku xigay Norway, Malta iyo Denmark. Chad, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Koonfur Suudaan, Afghanistan iyo Niger ayaa galay kaalmaha ugu hooseeya ee horumar la'aanta dhalinyarada. tilmaamuhu waxay kaloo muujinayaan in xaaladda dhalinyarada ay soo hagaagayaan adduunka oo dhan marka loo eego 3.1% intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2018, laakiin horumarku wali waa mid gaabis ah. inkastoo xogtan la soo ururiyay ka hor faafitaanka COVID-19, warbixintu waxay iftiiminaysaa jihada wanaagsan ee horumarinta dhalinyarada, taas oo fayrusku bedeli karo guulaha la gaadhay haddii aan tallaabooyin degdeg la qaadin si wax looga qabto. warbixinta Qaramada Midoobay ee horumarinta dhalinyarada waxay u kala saartay wadamada oo taagan kaalmaha ugu hooseeya iyo wadamada ku jira kaalinta koobaad. marka loo eego horumarinta waxbarashada dhalinyarada, dhanka shaqada, caafimaadka iyo sinaanta, nabadda iyo amniga iyo ka qaybgalka siyaasadeed. warbixinta Qaramada Midoobay ayaa u eegtay horumarinta dhalinyarada 27 tilmaame oo ay ku jiraan akhriska, qorista, codaynta si loo soo bandhigo xaaladda 1.8 bilyan oo qof oo dunida ah oo u dhaxeeya 15 sano jir ilaa 29 sano jir. qiyaastii 75% dadka Kenya ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyaro, iyadoo da'da dhexe lagu qiyaasay 19 sano jir. Kenya waxay heshay 0.577 dhibcood oo la mid ah Gambia oo ku jirtay kaalinta 139, waxaana ka sareeya wadamada Afrika Senegal oo heshay kaalinta 133, Koonfur Afrika oo heshay kaalinta 131, Djibouti oo gashay kaalinta 128, Masar oo gashay kaalinta 123, Comoros oo gashay kaalinta 121, Gambia oo ku jirtay kaalinta 119, Gabon oo ku jirtay kaalinta 114 iyo Libya oo gashay kaalinta 110. warbixinta Qaramada Midoobay ee horumarinta dhalinyarada iyo kobaca ayaa sheegtay in Kenya ay ka sareyso dalka Togo oo ku jirta kaalinta 141, Rwanda oo ku jirta kaalinta 149 iyo dalka Tanzania oo ku jirta kaalinta 148 iyo dalka Uganda oo ku jirta kaalinta 157. wadamada Afghanistan, Hindiya, Ruushia, Ethiopia iyo Burkina Faso ayaa ahaa 5 wadan
ee wax badani ka bedelay horumarinta dhalinyarada iyaga oo horumariyay dhibcahooda celcelis ahaan 15.74%. dhinaca kale Syria, Ukraine, Libya, Jordan iyo Lebanon ayaa muujiyay hoos u dhici ugu weynaa ee horumarinta dhalinyarada intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2018. guud ahaan tusmadu waxay muujinaysaa horumarka ka qaybgalka dhalinyarada ee geed socodka nabadda iyo waxbarashada, shaqo-gelintooda iyo daryeelka caafimaadka tan iyo 2010. marka loo eego dalalka dunida, caafimaadka ayaa sameeyay guulaha ugu badan oo ah 4.39% oo ay sababtay 1.6% hoos u dhaca heerka dhimashada ee dhalinyarada caalamka iyo 2% hoos u dhaca cudurka HIV oo ay weheliso horumarka laga gaadhay isdilidda iyo sidoo kale isticmaalka maandooriyaha. marka loo eego warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ee horumarinta dhalinyarada Afrika, Saxaraha hoose waxay sameeyeen guulaha ugu waaweyn ee horumarinta caafimaadka dhalinyarada. heerka dhalinyarada ee aan shaqayn iyo kuwa aan ku jirin dugsiyada tababarka ama shaqada ayaa hoos u dhacay. warbixinta ayaa sheegtay horumarka dhalinyarada waxaa hogaamiya ka mid noqoshada sinaanta ragga iyo dumarka xagga akhriska, qorista iyo sidoo kale inay yaraadaan kiisaska guurka carruurta iyo uurka gabdhaha ka yar 20 sano jir. hase yeeshee wax horumara kama dhicin ammaanka haweenka. dhibcaha waxbarashada ee adduunka ayaa kordhay 3% iyada oo Koonfur Aasiya ay samaysay horumarka ugu weynaa oo ahaa 16%, waxaana xigay Afrikada hoose ee Saxaraha oo leh 10%. nabadda ayaa soo hagaagay 3.41%, taas oo ah dhalinyaro yar inay u dhintaan rabshadaha. waxaa muhiim ah guusha ay ka gaadhay dhinacyadani Soomaaliya ayaa diiwaan gelisay guulihii ugu badnaa ee nabadda iyo amniga dhalinyarada, waxaana ku xigay Colombia, Sri Lanka, Eritrea iyo Russia. ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda ayaa ah meesha kaliya ee diiwaan gelisay hoos u dhaca ku yimid inta badan dunida ee dhibaatada dhalinyarada, iyada oo ka warbixintu hoos u dhaca ku yimid 102 dal oo dunida ah. si kastaba, Afrikada hooseysa ee Saxaraha ayaa diiwaan gelisay horumarka 5% celcelis ahaan dhibcaha gobolka. caalamka Sweden waxay hormuud ka noqotay waxbarashada. Luxembourg waxay hormuud ka noqotay xagga sinaanta haweenka iyo dumarka. Singapore waxay hormuud ka noqotay dhanka xagga shaqada, caafimaadka iyo nabadda.